Assalaamu calaykum waraxmatullah. Soo dhawaada saaxiibayaal. Wali ma isweydiiseen farqiga u dhexeeya dhalinyarada maanta iyo dhalinyaradii noolaan jirtay qarniyo ka hor? Waxay noolaayeen xilli uusan jirin wax lagu magacaabo dhiirigeliye, iskuul, internet iyo mobil. Ilaa maantana waxaa kaliya ku dayda taariikhdooda baara dadka caqliga u saaxiibka ah. Waxay ahaayeen dhalinyaro wax naqdin kara waxna amri kara. Dhalinyaradii hore waxay ahaayeen kuwo kulansaday geesinimo, cilmi iyo indheergaradnimo. Waxay ahaayeen kuwo uu hankoodu sareeyo. New generation dhalinta nool casrigan waxaa muuqata inay yihiin kuwa ay noloshoodu tahay kaliya maaweelo, inay cunaan, cabaan, kadibna ay iska socdaan. Waxay dhalinyarada maanta ku dadaalaan sidii ay u lumin lahaayeen waqtigooda, iyada oo waqtigu ka mid yahay waxyaabaha ugu qiimaha badan ee qof la siiyo. Dhalinyarada waqti xaadirkan nool iyo dhalinyaradii hore marka aynu isbarbar dhigno, waxaynu ogaanaynaa in isbeddel weyn uu ku yimid habdhaqankii guud ee dhalinyarada maanta. Waxaa isbedelay dabeecadooda, xamaasadoodiina hoos ayay u dhacday. Qiyam badan iyo joogtayn ayaa ka maqan. Waxaa jira isbedello badan oo dhacay oo aan halkan lagu soo koobi karin, balse waxaan ka xusi karnaa qaar ka mid ah. Waxaa ka mid ah isbedelada taban ee dhacay, sabar la'aanta iyo caajisnimada. Waxaad arkaysaa qof ka mid ah dhalinyarada casriga nool oo wax ka badan 3 saacadood daawanaya aflaam ama muuqaalo aan faa'iido lahayn, haddana aan awood u lahayn inuu 10 daqiiqo akhriyo buug oo wax ka faa'iidayo. Intaa kadib waxaad arkaysaa isagoo dadka weydiinaya qaabka ugu fudud ee wax loo barto. Kadib maxaa dhacayo? Waxa uu noqdaa qofkaas qof niyad jabsan, nafsiyanna daciif ah. Waxaa laga yaabaa in qof ka mid ah dhalinyarada casriga nool uu jadwal degso si uu raaco maalin walba, ama uu isdhaho insha Allah sanadkan waa sanad aan wax badan iska bedeli doono. Laakiin hadalkaas wuxuu noqdaa kaliya mid ka soo yeeray. Intaa waxaa u sii dheer, dhalinyarada maanta ma ahan kuwo qaadi kara mas'uuliyad noocee doonto ha ahaato. Mas'uuliyaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha kaa dhiga inaad noqoto qof jira. Sidoo kale dhalinyarada maanta ma ahan kuwo wax hogaamin kara. Way adag tahay in laga dhaxlo qof hogaamiye sax ah. Badankooda waa kuwo ay maskaxdooda fadhiso, qalbigooduna uu mar walba niyad jabsan yahay. Waxay dhalinyarada maanta aad ugu tiirsan yihiin dadka lagu magacaabo dhiirigeliyayaasha, kuwaas oo kaliya ugu soo kooba you can do it, waad samayn kartaa. Run ahaantii waxaa laga yaabaa in dad badan aysan ogeyn saameynta taban ee ay leeyihiin dadkan lagu magacaabo dhiirigeliyayaasha ama tababaro nololeed. Si aad u bilowdo nolol maalmeedkaaga, ma waxaad u baahan tahay inaad marka hore isa soo dhiirigeliso. Dhalinyaradii hore waxay ahaayeen kuwo go'aan leh oo ka dhabeeya waxa ay yiraahdaan. Waxay ahaayeen kuwo mas'uuliyiin ah oo mas'uuliyad qaadi kara. Marka laga soo tago waxaas oo dhan, dhalinyaradii hore waxay ahaayeen kuwo ummad dhan hogaamiya. Tusaale ahaan, Maxamed Al-Faatix, 21 jir, furtay mid ka mid ah magaalooyinkii ugu awood badnaa xilligaas, dabcan Istanbul. Sidoo kale Maxamed ibn Qaasim al-Thaqafi waxaa laga yaabaa inaydaan badankiina aqoon. Maxamed ibn Qaasim waxa uu ahaa hogaamiyihii ugu horeeyay ee si guul leh u qabsada qaar ka mid ah gobollada dalka Hindiya. Da'diisuna waxay ahayd 16 sano marka uu qabsanaya gobolladan. Farqi weyn ayaa u dhexeeya hogaamiyahaas iyo 25 jirkan hadda guriga hooyadiis ka soo kacay. Muuqaalkaas kooban ee aan idin soo turjumay waxa uu ahaa qoraal uu qoray mid ka mid ah culimada dalka Sacuudiga. Waxa uu qoraalkan qoray kadib markuu arkay isbeddelka aadka u fooshaxun ee ku yimid dhalinyarada. Waxa uu sheegay in dhalinyarada dunida Carabta ay marayaan heerarkii ugu jilicsanaa. Ma ahan kaliya dunida Carabta ee waa adduunka oo dhan. Xitaa innaga ka Soomaali ahaan